wararka ka imaanaya gobolka Shabeellada Dhexe waxay sheegeen halkaasi duqeymo culus ay xawga ka soconayaan kaasoo la bartilmaameedsanayay dagaalmayaasha Al-Shabaab iyo waliba saraakiil halkaasi isku urursanayay dagaalmayaasha Al-Shabaab ayaa saaka waxay weerar ku soo qaadeen masaajid Axmed Guduud kaasoo dhowr jiho ay ka weerareen isla markaana qaraxyo ay qayb ka hayeen hayeeshee wixii markaa ka dambeeyay ayaa duqeymo magaaladaasi lagu bilaabay ilaa caawa halkaasi ay ka socdaan duqeymo ayaa la sheegay in lagu gubay gawaari dagaalmayaasha Al-Shabaab ay doonayeen in qaraxyo ay ku xiraan sidoo kalena goobo Al-Shabaab ay ku shirayeen saraakiishooda ayaa la bartilmaameedsaday dadka deegaanka waxay sheegeen in qaraxyada ay ka maqliyeen caawa Shabeellada Dhexe ay aad u cuslaayeen isla markaana dhagoodii uu qaadi waayay jugta iyo waliba qaylada waxay inta ku direen hadalkooda in madaafiicdu ay tirbeel ahayeen isla markaana ay kor u dhaafayeen ilaa 10 madfac waxay inta ku direen in goobo badan oo Shabeellada Dhexe kamid ah ay caawa halciiso kadib markii duqeyntaasi lagu garaacay dagaalmayaasha Al-Shabaab ayaa waxaa la sheegay in khasaare xooggan halkaas ay ka soo gaareen isla markaana khasaarahooda aan weli dawladda Soomaaliya si faahfaahsan kaga hadlin waayadan dambe Al-Shabaab ayaa Shabeellada Dhexe xooga marka ay soo saareen wixii ka dambeeyay ayaa duqeymo lala dhaxay kaasoo dhowr deegaano laga fuliyay duqeymahan ayaa waxa fulinayay diyaaradaha dagaalka ee dawladda Ethiopia orjeedna Al-Shabaab arintaasi way ka andacoodeen waxay sheegeen in dad shacab ah lagu laayay duqeymaha laga sameeyay gudaha dalkeena Soomaaliya sida Shabeellada Dhexe Hiiraan Galgaduud iyo waliba Jubbada Dhexe Al-Shabaab waxay sheegeen in madaafiicda ay ku garaacayso Ethiopia ay xad ka dhaafsiisay isla markaana deegaano fara badan ay awoodi karaan ama ay awoodeenba inay gubaan waxay inta ku direen hadalkooda in xaaladooda ay tahay deegaanada wayane mid aad u xakiran maadaama duqeymo xooggan lagu garaacay dadka deegaanka waxay sheegeen in caawa duqeymaha halkaasi ka soconayay waa Shabeellada Dhexe wayane gaar ahaan masaajid Axmed Guduud tuulooyinka hoos yimaada ay xaaladooda tahay mid adag isla markaana xulac fara badan ay arkayaan iyo waliba qiiq iyo sawaxan cirka isku sii shariiriya intaas waxay ku direen dadka rayidka ah in shacabka ay ka baxeen deegaanadooda isla markaana banaanka ay joogaan halkaana ay ka eegayaan duqeymaha si jarandooniga ugu dhacaya tuulooyinka hoos imaanaya masaajid Axmed Guduud dawladda Soomaaliya ayaa waayadan dambe waxa ay dagaal xooggan iyo duqeymo ka fulinaysay deegaano badan oo dagaalmayaasha Al-Shabaab ay ku sugan yihiin deegaanadaas ayaa waxa kamid ah deegaano ay Shabeellada Dhexe ka qabsadeen kadib markii weerar ay ku soo qaadeen duqeymahaas iyo dagaalka tooska ah ayaa waxa uu dhaliyay in deegaano badan Al-Shabaab gacantooda laga saaro isla markaana saraakiil badan ay ku nafuwayaan Shabeellada Dhexe madaxweynaha dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo waayadan dambe abaabul ciidan ka wada Shabeellada Dhexe ayaa waxa uu shacab ka qaaday in muddo kooban ay ku soo afjarayaan weerarka dagaalmayaasha Al-Shabaab ay ku soo qaadeen Shabeellada Dhexe deegaanada ay ka haystaan gacantooda laga saari doono sidoo kale waxa uu shacab ka qaaday in dhawaan deegaanada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland dagaal xooggan ay ka bilaaban doonaan si Al-Shabaab halkaasi jooga gacantooda laga saaro dadyo fara badan ayaa arintan soo dhaweeyay isla markaana guul ku tilmaamay maadaama deegaano dhowr sano Al-Shabaab gacantooda ku jiray laga qaaday isla markaana saraakiil fara badan looga dilay duqeymihii dagaalada tooska ah ee waayadan dambe ka dhacay dalkeena Soomaaliya qayb ka mid ah